بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا شرفت لك وحرن كنا برا في إنجليز كنا لو طلقلني إلى إني كسو قد بينو عشر كسابسان برشة أفكا إنجليشكا إن عشر كنا ما أنت وعشر كنا سديدات وحن إدين سوجيدين دون أني وزكريا محمد عشر كنا حدود بتاعي عشر دين التحنا إنه أها أو معلومة عن سودني أو كسابسنا possessive pronoun possessive adjective iyo possessive s oo maanta aan kaga sii hadlayno possessive oo asaga aan ku baranayno wixii aan soo barnay wax ka duwan waxaasna waxay yihiin whose ayaan ku baranaynaa insha Allah. Intiinan hor dhicin fadlan haddaa kanaalka ku cusubtahay subscribe share like si anaga ay noogu noqoto dhiirigelin adna ay kugu noqoto fursad aad kaga faa'iidid waxyaabaha iyo casharada aan soo gudbino mahadsanid. sidoo kale cashirkan haddaa ka cusubtahay fadlan casharadeenna hore dib ugu laabo si aad soo gaartid halkaa maanta aad taagannahay. haddii aan xoogaa yara faahfaahiyo cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay possessive oo baranayno whose af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa kuma ayaa iska leh ama shayga lahaanshihiisa markaa weydiinaysid sida shayga aad weydiinaysa uu noqonayo shay adiga aad leedahay shay aniga aan leeyahay ama shay aan wada leenahay ama shay ayaga ay leeyihiin oo ah possessive waana soo barnay insha Allah waana xasuustaan sa filayo. halkan waxaa ku baranaynaa asagoo faahfaahsan. whose waa lahaansho waan soo sheegnayba. This is a possessive pronoun. Kani waa lahaanshahaas oo tilmaamayo qof aan la qeexin magaciisa. qofkaas ha noqdo adiga ama aniga ama anaga wax aan leenahay oo anaga magacaan la qeexin ay English ahaan waxaa loo yaqaanaa possessive pronoun. tusaale ahaan his wixiisa, her waxeeda, our waxeena, their waxooda, my wixiga or its oo wixiisa ama waxeeda markay yihiin noole ama ma noole, noolaan caqliga lahayn ama ma noole. We use it to find out waxaan u isticmaalnaa to find out inaan ku ogaano which person qofkee something belongs to shaygaas iska leh. shay waxaan ku ogaanaa qofka iska leh shaygaas aan ku tilmaannaa. okay asagoo faahfaahsan ama oo si fiican u fahmi karno dhankaan inoogu qoran yahay. okay whose camera waa cameradii aan naqaanay. is this cameradan yaa iska leh. whose camera is this cameradani yaa iska leh. okay ileen cameradan aan ahaynaa waxaan weydiinaynaa qofka iska leh cameradan. kasoo qaad cameradan halkan kasoo heshay waxaa rabtaa inaad weydiisid cameradan yaa iska leh. waxaa dhehaysaa whose camera is this cameradani yaa iska leh. ileen this waa kani. whose gloves are these gloves waa kan gacmaha la gashto haddii noqoto midkii qabowaha laga gashto ama mid dhaqaatiirta isticmaalaan iyo qofka muxuu ahaa dadkan isbitaalada ka shaqeeya kuwa isticmaalaan gloves la wada dhahaa. whose gloves are these glovesyadani yaa iska leh. waa soo qabanay waa weydiinaynaa marka yaa iska leh. whose gloves are these waa weydiinaysaa yaa iska leh glovesyadani. fahantiin saa filayo. whose notebook was stolen in the class. stolen macnaheedu waa xaditaan ama wax la xaday waxayna ka timid ereyga steal waa wax xadid. stolen waa wax soo dhacay hore u soo dhacay oo la soo xaday. tan waxay ka dhigantaa marka waaba la xadayba wax la soo xaday waa aslan. okay in the class marka waxay noqonaysaa whose notebook waa buugagta wax lagu qoro notebook loo yaqaanaa. whose notebook was stolen in the class yaa lahaa notebooka classka lagu xaday. yaa iska lahaa notebooka ama buugga classka lagu xaday. muxuu ahaa waxaa maqashay classkaaga qof arday ka mid a dhigto baa buug laga xaday. marka waxaa rabtaa inaad weydiisid buuggaas la xaday yaa iska lahaa. waxaa dhehaysaa
Whose notebook was stolen in the class? Buugga la xaday yaa iska lahaa. Waxaan filaya inaan isla soconno. Whose ball is this? Ball waa banooni ama kubad. Ball waa banooni ama kubad. Kubad yaa heshay ama meel baa ku aragtay. Waxaa rabtaa inaad weydiisato qofka iskale. Waxaa dhahaysaa whose ball is this? Kubadani yaa iskale. Whose ball is this? Kubadani iskale. Whose children are those? Caruurtani yaa dhalay ama caruurtani yala socdeen. Yani waa tusaale ahaan haddaan ku siiyo mall joogtaa, moolasha laga adeegto ama supermarket ama wadaad taagan tahay banaankeeda ama suuqa joogtaa ama meel uuna dad isugu imaadana joogtaa. Marka waxaa aragtay caruur gooni u taagan ama caruur ka dareentay inay lunsan yihiin. Marka waxaa rabtaa inaad weydiisid caruurtaas qofkii la socdeen ama qofka dhalay. Waxaa dhahaysaa whose children are those? Whose children are those? Caruurtaas yaa dhalay ama caruurtaas yaa la socdeen ama caruurtaas yaa watay. Whose children are those? Whose marka waa weydiimo shay lahaanshihiisa ama qof lahaanshihiisa aan weydiinay sida isticmaalaysaa whose. Okay. Marka intaan aan ka soo hadalnay waa ayagoo su'aale ahaan aan weydiinayna marka. Kan halkan su'aal ma aha. Sorry. Inta aan ka soo hadalnay waa su'aalo markaan weydiinayno, laakiin labadan way ka duwan yihiin intaan ka soo hadalno kor. Labadan waxay ka hadlayaan qof ayay ka hadlayaan lahaanshihiisa ama qof wuxuu leeyahay ka hadlayaan. Si fiican dhagaha u fura inaan isla fahnaa rabaa insha Allah, si fiican iskula fahno ilaa waxay way ka duwan yihiin kuwan kale. Mar haddii kan labadan aan soo aragtay intaan kale waa qiyaasan kartaa, fahmi kartaa, laakiin labadan way ka duwan yihiin, xogaa tricky waa wax yar adag yihiin. Marka waxaan rabnaa inaan fahno. The girl whose bag is red is looking for you. Okay, aan isla fahno. Girl waa gabar. Whose bag waa borsada caadiga gabdhaha ay wataan ama borso nooc inta noqoto bag la dhahaa. Kala borso nooc inta noqoto bag la dhahaa. Red waa casaan. Marka erigan red color waa midabka casaanka ah. The girl gabadha whose bag is red, gabadha borsadeeda gaduudna is looking for you ayaa ku raadinaysa. Gabadha borsadeeda gaduudna ayaa ku raadinaysa. Okay, whose waxa isticmaalna waxa ku cabireynaa borsada gaduudan inay gabadha leedahay ama calaamad muxuu ahaa qofkaas uu garan karo. Tusaale ahaan waa gabadha meel wada taagan, adi iyo muxuu ahaa saaxiibadaada meel wada taagan ama saaxiibkaaga. Marka waxaa rabtaa inaad tilmaantid qofka raadinayo gabdhahaas ka mid ah asaga. Waxaa dhahaysaa the girl whose bag is red is looking for you. Ilan gabdhaha mid ka mid ah borso gaduudan wadato. Waxaa rabtaa inaad u sheegtid gabadhaas borsada gaduudan inay raadinaysay asaga ama ayada. Okay, the girl whose bag is red is looking for you. Gabadha borsadeeda gaduudna ayaa ku raadinaysa. Waxaa filayaa inaan isfahanay oo si fiican muxuu ahaa iskula soconno. Ahmed waa qof magaciisa. Whose father is a doctor, lives in UK. UK waa United Kingdom ama Ingiriiska ama England taqaanaan. Ahmed marka hadda waxaan tilmaamnaa qofkan Ahmed la dhaho oo aabi wuxuu ahaa meesha uu ku nool yahay rabnaa inaan tilmaano. Marka Ahmedyadu way badan yihiin. Waa marka waxaan rabnaa inaan tilmaano Ahmedka oo muxuu ahaa aan rabno inaan ka hadlayno inaan tilmaano. Waxaan dhahnaa Ahmed whose father is a doctor, lives in UK. Ahmedka aabihiisa dhakhtarka ahaa wuxuu ku nool yahay Ingiriiska. Ahmed waa dhowr Ahmed. Ahmedyada marka mid ka mid ah aabihiisa dhakhtar ah. Marka waxaa rabtaa Ahmedkaas inaad tilmaantid iyo meesha uu ku nool yahay. Okay, Ahmed whose father is a doctor, lives in UK. Ahmedka aabihiisa dhakhtarka ahaa wuxuu ku nool yahay Ingiriiska. Marka anaga wuxuu ahaa waxaan u soconaa Ahmed oo aabihiisa kama u baahnin, laakiin wuxuu ahaa ereygan whose waxaan u isticmaalnay aabahan Ahmed ayuu dhalay. Aabahan Ahmed ayuu dhalay. Marka waa sidii marka af Soomaali ahaan ereyga ugu dhawaan ku tilmaamayno. Ahmedka aabihiisa dhakhtarka ahaa wuxuu ku nool yahay Ingiriiska. Ahmedka aabihiisa dhakhtarka ahaa
wuxuu ku nool yahay ingiriiska. ingiriiska waxaa ku nool axmed. aabahan axmed ayaa dhalay. marka whose waa lahaansho. marka lahaansho aabahaga waa leedahay, adigaa leh. aabahaga adigaa leh, ama maadaama uu ku dhalay adigaa leh, asagan asaga ku leh. okay. Ahmed whose father is a doctor lives in UK. axmedka aabihiisa dhakhtarka ahaa wuxuu ku nool yahay ingiriiska. hal mara dulmarina saa u wada fahanno. halkan hal mara si orod ku dulmaraya muxuu ahaa, maadaama iska fududahay oo weli ah xasuusataan. whose waxaan isticmaalnaa saaniri shay lahaanshihiisa ama qof lahaanshihiisa. waalidkaaga ha noqdo ama waalid wiilkiisa ha noqdo, markuu tilmaamayo waxaan isticmaalaynaa whose. haddaan su-aal ka wadno ama haddaan su-aal ka wadno ayadaan ka bilaabeynaa. haddaan su-aal ka wadno ayadaan ka bilaabeynaa. haddii aan muxuu ahaa qeexayno qof, aan qeexayno ama qof aan tilmaan aan siinayno, qofkaasina tilmaan gooni lagu garan karo uu leeyahay aan tilmaamayno, dhexdaan kasoo gashanayna meesha doontaa naga soo gasho. laakiin inta badan waxay kasoo raacdaa qofka magaciisa markaa tilmaantay ay kusoo xigsantaa. qofka magaciisa kusoo xigsantaa. okay. This is a possessive pronoun. kani waa lahaansho magacyaal ah. lahaanshahaas oo ku saabsan qof aan magaciisa la qeexin oo kale ah his waxiisa, her waxeeda, our waxeena, their waxooda, my waxayga, its wixiisa ama waxeeda, ama haddii yihiin noolaan caqliga lahayn ama ma noolaha. we use it to find out. waxaan u isticmaalnaa we use it to find out which person something belongs to. waxaan u isticmaalnaa sida u qeexno shay lahaanshihiisa qofka iska leh. inaan saa u qeexno isticmaalnaa. aan gudubna qaybtan. okay. Whose camera is this? Whose yaa iska leh. Camera is this. Kaamiradayn yaa iska leh. xataa waxaa dhihi kartaa whose pen is this? qalinkan yaa iska leh. Whose shirt is this? shaatkan yaa iska leh. Whose board is this? sabuuradan yaa iska leh. marka tani waa camera. cameradan yaa iska leh. camerada haysta waxaa leedahay cameradan yaa iska leh. Whose camera is this? Whose gloves are these? gloves waa gacmo gashi. oo isbitaallada laga isticmaalo, dhakhaatiirta isticmaalaan kuwooda ha ahaado ama kuwa qabowaha laga xirto. Whose gloves is this? whose gloves are these? glovesyadaan yaa iska leh. Whose notebook was stolen in the class? arday ka mid ah ardayda class kula dhigataa buug laga xaday. marka waxaa rabtaa inaad weydiisid ardayga uu yahay, wuxuu ahaa ardayga uu yahay qofka buugga laga xaday inaad weydiisaa rabtaa inaad awaatid. waxaa dhehaysaa whose notebook was stolen in the class? buugga iskuulka laga dhex xadiyaa iska lahaa. whose notebook was stolen in the class? stolen waa ficil mudaaric ama wax lasoo dhaafay oo muxuu ahaa ficil dhacay ama xaditaan dhacday. markeedu hore ahayd still waa wax muxuu ahaa hadda la joogo. markii wax waa la xaday markaad inaad dhahid waxaa leedahay stolen, waa la xaday, wax soo dhacay waaye. Whose notebook was stolen in the class? yaa iska lahaa buugga kalaaska lagu xadee. marka meeshan waxaa weydiinaynaa buuggan qofka iska leh arabna inaan ogaano, la buugga la xaday qofka iska leh inaan ogaan arabnaa. Whose ball is this? kubaddaani yaa iska leh. Whose ball is this? kubaddaani yaa iska leh. Whose children are those? Whose children are those? caruurtaasi yaa la socdeen ama caruurtaasi yaa dhalay. ma fahantay? suuq adigoo joogtid ama meel adigoo joogtid meel dadka badan isugu yimaadaan, ama suuq ha ahaado ama muxuu ahaa mall ha ahaado ama supermarket, meesha doonta ha noqoto. waxaa aragtay caruur xoogaa ka dareentay inay lunsan yihiin. aragtaa marka caruurtaas inaad weydiisid waxaad leedahay caruurtaas yaa la socdeen ama caruurtaas yaa lama raadin inaad dhahid. waxaa dhehaysaa whose children are those? Whose children are those? The girl whose bag is red is looking for you. gabadha boorsada gaduudan wadato ama boorsadeeda gaduud casaanka yahay baa ku raadinaysa. waa adigoo saaxiibadaada ama saaxiibtaada la taagan, dhinaca kale ay taagan yihiin gabdho oo mid kamid a boorso gaduudan ee wadato. waxaa rabtaa saaxiibadaada ama saaxiibtaada inaad u sheegtid gabadhaas boorsada gaduudan baa ku raadinaysa. gabadhaas boorsada gaduudan baa ku raadinaysa. waxaa dhehaysaa the girl whose bag is red is looking for you.
The girl gabadha whose bag is red oo boorsadeeda gaduudna is looking for you adiga bay ku raadinaysaa. Ahmed waa qof magaciisa marka. Whose father is a doctor lives in UK. Ahmed whose father is a doctor lives in UK. مفهمتي؟ أحمد وقف دور أحمد تقانا مركا أصحاب تاس لجوكتان وشكل سنسان مركا دور كاسقف أحمد اللي مت كم إذا تلمان الوقرت أولية هاي وأصحاب تاد يكون فهمي كران أحمد كاسن أكون تلمان ما يصير ماشي أو كون أولية هاي وتصالة دور كاس أحمد مت كم إذا أحمد كاس أبي سوحو كون أولية أبي سوحو يهاي دكتور مركا وحاربتا أحمد كأبي سدكتور كأها وحو كون أولية إنجليزكا UK waa United Kingdom ama boqortooyada Ingiriiska ama boqortooyada midowda Ingiriiska ma aqaan qaab loo tilmaamay oo marka tilmaamaysid Ahmed ka aabiisa dhakhtarka yahay wuxuu ku nool yahay Ingiriiska marka ulajeedadeena waa Ahmed ka UK ku nool aabaha kuma noola aabaha dhakhtar waaye laakiin wiilkiis Ahmed UK ku nool marka waxa dheena Ahmed ka aabiisa dhakhtarka yahay wuxuu ku nool yahay Ingiriiska waxaan ku dhahnaa Ahmed whose father is a doctor lives in UK. Ahmed whose father is a doctor lives in UK. waxaa filayaa inaad fahanteen haddiinan fahmin qaybta commentiga igu tilmaama waxaan rajeynayaa insha Allah cashirkeena 8aad inaan ka dhigana markaas qaybtiisa koowaad saan soo diyaarin qaybtiisa labaad oo faahfaahsan haddaa fahanteen commentiga noogu sheega aan kasii soconna marka intaana cashirka xigta ku kulmi doono waxa idinkaga tagay khayr iyo baraar iyo barwaaqo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.